dalalka adduunka oo dhan waxay ka siman yihiin inay leeyihiin hal madaxweyne oo hoggaanka u haya dalkaasi marka laga yimaado dalka Shiinaha oo ay hoggaanka taladiisa hayaan 7 qof. Shiinaha ayaa ah dalka ugu tirada badan adduunka dad ahaan. Baarlamaankiisu wuxuu ka kooban yahay in ka badan 3,000 oo xildhibaan, waxaana talada dalkaasi haya xisbiga Shiyuuciga oo ah xisbiga ugu awoodda badan dalkaasi. Muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonnaa mid ka mid ah nidaamyada maamul ee ugu yaabka badan adduunka iyo qaabka uu u shaqeeyo, innagoo isla ogaan doona sida xisbi ay dhidibada u taageen 50 dhalinyaro ah oo maanta u noqday xisbiga keliya ee gacanta ku haya talada maamul ee dalkaasi. Sanadkii 1921 koox ka kooban 50 qof oo uu ka mid yahay aasaasaha Shiinaha cusub Mao Zedong ayaa guri ku yaala magaalada Shanghai kulan ay ku qaateen kaga dhawaaqay xisbi cusub oo loo bixiyay xisbiga Shiyuuciga ee Shiinaha, kaasoo aaminsan afkaartii aabaha Shiyuuciyadda Vladimir Lenin. Qaybo badan oo Shiinaha ah waxaa waqtigaasi haystay Japan, gobollada qaarna waxaa ka talinayay hogaamiye kooxeediyo kala taabacsan dowlado shisheeye sida Faransiiska iyo Ingiriiska. Dalka inta soo hartayna waxaa joogay xukuumad dimuqraadi ah balse aan awood badan lahayn. Maamulka guud ee dalkana ku magacaaban kooxdan cusub ayaa heshay taageero badan, waxaana ku soo biiray dad aad u tiro badan. Hadafka xisbigan oo markii hore ku dhisnaa gelidda siyaasadda ayaa cadaadis kala kulmay maamulka dowladdii tabarta darnayd ee Shiinaha. Kadibna waxay go'aansadeen inay hubka qaataan kuna biiraan dagaalada sokeeye ee ka socda gudaha Shiinaha. Waxay yeegleeleen ciidamo u badnaa dadkii degi jiray miyiga iyo dadkii xoogsatada ahaa, waana halka rasmiga ah ee budhiga u noqon doonta curashada ciidanka difaaca Shiinaha. Ciidankii Shiyuuciyadda ayaa dagaal ku qaaday maamuladii gobollada iyo hogaamiye kooxeedyadii, waxaana u suurto gashay inay gobollo badan la wareegaan. Waxay sidoo kale dagaal adag la galeen ciidankii Japan ee xoogga ku joogay dhulka Shiinaha. Qayb weyn ayayna ka qaateen guuldaradii Japan ka soo gaartay dhulka Shiinaha waqtigii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. Kooxdan xisbiga Shiyuuciga ayaa markii hore iska dhigtay inay taageerayso dowladdii talada haysay, balse markii Japan laga saaray meesha ayay bilaabeen sidii ay talada ula wareegi lahaayeen. Kooxdan dowladda haysatayna meesha looga tuuri lahaa. Markuu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida sanadkii 1945 waxaa Shiinaha ka bilowday dagaal sokeeye oo loolan loogu jiro la wareegidda talada. Kooxda Shiyuuciyadda oo taageero badan ka helaysa shacabka ayaa ugu dambeyn sanadkii 1949 ku guulaysatay inay la wareegto xukunka guud ahaan dhulweynaha Shiinaha. Madaxdii dowladdii xilka haysayna waxay u qaxeen jasiiradda Taiwan iyaga oo weli sita magaca dowladda. Markii ay u socon weysayna waxay ku dhawaaqeen dalka madax bannaan Shiinaha. Xisbiga Shiyuuciga Shiinaha ayaa si rasmi ah ula wareegay xukunka Shiinaha sanadkii 1949 ilaa maantana isaga keliya ayaa ah xisbiga maamula dalkaasi. Xisbigan ayaa u dhisan hab maamul sida jaranjarada u kala sareeya. Guud ahaan waxay gaarayaan xubnaha xisbigan 92 milyan oo qof, waxaana laga dhex xulaa 2,200 oo qof oo xisbiga ku matalaya baarlamaanka dhexe ee Shiinaha oo ka kooban 3,000 oo xildhibaan. 800 ee kale ayaa ka yimaada bulshada qaybaheeda kala duwan ee aan xubnaha ka ahayn xisbiga Shiyuuciga, sida xubnaha xisbiyada yaryar ee aan siyaasadda ku jirin, aqoon-yahano, xubnaha ciidanka iyo ururada shaqaalaha. Waxayna ku yimaadaan nidaam xulasho ah. Kadibna 2,200 ee xisbiga Shiyuuciga matalaya ayaa laga sii dhexulaa 370 xildhibaan oo loo yaqaano guddiga dhexe. Golaha guddiga dhexe ayaa iska sii dhexula 25 qof ee loo yaqaan guddiga Politburo, waxayna iska sii dhexulaan 7 qof oo talada dalka oo dhan gacanta ku haya, kuwaasi oo ugu dambeynna doorta madaxweynaha Jamhuuriyadda Shiinaha, sidoo kalena noqonaya taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo xoghayaha guud ee xisbiga Shiyuuciga Shiinaha. Kooxda guddiga joogtada ayaa lagu xushaa shuruudo adag iyo ka fiirsi dheer. Inta badan waa dad xilal sare ka soo qabtay
dalka ama xisbiga dhexdiisa sooyaalkoodii hore ayaa aad loo baaraa waxaana laga ilaaliyaa qof kasta oo aan si buuxda u aaminsanayn afkaarta shuyuuciyadda ee xisbiga talada haya. guddi hoosaadka golaha dhexe ee xisbiga ayaa marka hore si qarsoodi ah u soo xula dadka ka mid noqonaya kooxdan gaarka ah, kadibna golaha guddiga dhexe ayaa ansaxiya magacaabidda guddiga 7 ah, kadibna golaha guud ayaa la horgeeyaa kaasi oo mar kale si rasmi ah u ansaxiya magacaabidda kooxdan. guddigan 7 ah ayaa dejiya shuruucda Shiinaha. shuruucdan ay dejiyaan ayaa saamaysa nolosha dalkaasi ka jirta oo idil. waxay jiheeyaan siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibadda, maamulka ciidanka, warbaahinta iyo la socoshada afkaaraha lagu baahiyo internetka, manhajka waxbarashada iyo xitaa arrimaha hoose ee qoyska iyo inta carruur ah ee qofka Shiinayska ah loo ogol yahay inuu dhalo. xubnaha qaar ayaa ka mid noqda golaha fulinta sida ra'iisul wasaaraha oo kooxdan ka soo baxa. sidoo kale hay-adaha sare ee Shiinaha ayaa toos u hoos yimaada kooxdan. dhammaan howlaha dawladdana halkaasi ayaa laga jaangooyaa. xubnaha kale ee golaha dhexe ayaa kulma 5 sanaba mar, halka guddigan 7 qof ah oo si joogto ah mas'uul uga yahay howlmaalmeedka dawladda iyo go'aanka gaaridda arrimaha degdega ah. kadibna waxay ula soo noqdaan golaha dhexe oo inta badan aan war ka soo celin soo jeedinta iyo go'aamada ay gaaraan guddiga joogtada ah. xubnaha golaha ayaa madax ka ah guddiyo kale oo fulin ah. madaxweynaha ayaa ah hoggaanka koowaad ee ciidanka. dhammaan arrimaha difaacana isaga ayay soo maraan. arrimaha gudaha iyo siyaasadda maamulada waxaa madax ka ah ra'iisul wasaaraha oo sidoo kale xubin ka ah guddiga. dhammaan hay-adaha fulinta iyo cadaaladda sida maxkamadaha, xisbiyada iyo guddiga kormeerka dadweynaha waxa ay hoos tagaan xubno ka mid ah guddigan. u hoggaansamidda go'aanada ka soo baxa golaha guddiga joogtada ah ayaa qasab ah in la raaco, mana jirto cid ku dhiiran karta inay ka soo horjeesato. waana astaan guud oo waajib ku ah xubnaha xisbiga shuyuuciga Shiinaha. sidoo kale shacabka ayaan ku dhiiran karin inay ka soo horjeestaan amarada xisbiga. dhammaan warbaahintana waxaa gacanta ku haya dawladda. shabakadaha internetkana waxaa lagu sameeyaa faafreeb aad u ballaaran. warbaahinta galbeedkana nooc kasta oo ay tahay waa ka mamnuuc gudaha dalka Shiinaha in laga daawado. mareegaha internetka qaarkoodna waxaa saaran mamnuuc guud sida adeegyada Google, Facebook iyo dhammaan aaladaha hoos yimaada sida WhatsApp, YouTube iyo Instagram. sanadkii 1987 xoghayihii xisbiga shuyuuciga Hu Yaobang oo xilligaasi sidoo kale hayay xilka ra'iisul wasaaraha ayaa dejiyay sharciyo dhaqaalaha Shiinaha loogu furayo caalamka. waqtigaasi Shiinuhu wuxuu ahaa dal dhaqaale ee ahaan xiran, ganacsiga xorta ahna uusan ka jirin. fikraddan ayaa cadaadis dhalisay, waxaana lagu qasbay inuu iscasilo, balse waxaa loo ogolaaday inuu ka sii mid ahaado 7 qof ee guddiga sare. waqti yar kadibna isagoo ku sugan xarunta xisbiga ayuu wadnuhu istaagay. dawladda ayaana qarisay dhammaan xogtii la xiriirtay baaritaanka geeridiisa. tan iyo 2012 waxaa hoggaanka kooxdan guddiga joogtada ah ahaa Xi Jinping. shirkii 20aad ee xisbiga shuyuuciga oo 5 sanaba hal mar la qabto ayaa mar kale Xi Jinping dib loogu doortay inuu ka mid noqdo kooxda awoodda badan ee guddiga joogtada. waxaana bisha 3aad sanadka 2023 mar kale la qorsheynayaa in loo cusboonaysiiyo xilka madaxweynaha iyo hoggaanka sare ee ciidanka qalabka sida. Xi Jinping oo 69 jir ah ayaa dhalinyarnimo ku soo galay xisbiga. aabihii ayaa ka mid ahaa madaxdii xisbiga iyo hoggaamiye sare oo ka tirsanaa ciidankii Shiinaha ka xoreeyay Japan. Xi Jinping oo waqti fog xisbiga ku jiray ayaa sanadkii 2007 ka mid noqday kooxdan 7 ah. 2012kiina wuxuu noqday xoghayaha xisbiga. ugu dambeynna 2013 ayuu noqday madaxweynaha Shiinaha. Xi Jinping ayaa lagu sifeeyaa ruux aad u mayal adag, go'aano bini'aadantinimada ka baxsanna kula dhaqma dadka aan ku afkaarta ahayn. tan iyo 2016 wuxuu xasuuq iyo isirsifayn ku wadaa muslimiinta iyo goorka ee ku dhaqan gobolka bariga Turkistan ee uu Shiinuhu xoogga ku haysto. xukuumadda Shiinaha ayaa dhistay xerooyin lagu xereeyo shacabka iyo goorka si loogu ciqaabo
loogana tirtiro afkaarta diimeed ee ay aaminsan yihiin. waxaa sidoo kale lagu sameeyaa in beeraha iyo warshadaha si qasab ah loogu shaqaalaysiiyo. intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2020, ku dhowaad nus milyan qof ayaa si qarsoodi ah loo dilay, qaarkoodna dhaawacyadii jirdilka ayay u geeriyoodeen. wax tallaabo ahna lagama qaadin. dowladda Shiinaha ayaana mar kasta inkirta jiritaanka xasuuqan.